بسم الله الرحمن الرحيم كسودواد اسطنبول كيتشن maanta waxaan sameynaa insha Allah basbaas waxyaalo ay ka kooban yihiin inta waxa igu jiro parsley kabsar caleenta uu egyahay jab oo onion ama oo taqaan basal waxaan isticmaalayaa noocanaato basbaaska caaninaas jarjaran waaye toon 4 xabo inta igu jirto intan waxa ii yaalo kabsar caleen way isu egyihiin laakiin waxaa ku kala garanaya urta ku kala garanaysa ay carafta insha Allah kabsar caleen waaye taasna ama cilantro saa u taqaanid cusbaan isticmaali doonaa salt lemon juice liin dhanaan aan soo miiray black pepper filfil iyo waxaan isticmaali doonaa insha Allah coconut oil organic insha Allah intaasi koobiyin waa soo jarjarayaa waa isku soo maasha Allah waa soo jarjaray parsleyga iyo kabsar caleentii iyo basbaaska basashii wixii oo dhan insha Allah haddana makiinadan ku shiidanayaa soo baxsana maasha Allah blenderkan aan ku shiidanayaa insha Allah basashii aan ku shubayaa iyo basbaaskii kabsar caleenta iyo parsley aan ku darayaa cananaaskii ama pineapple soo taqaanid toontii basbaas inaba caadi ahaan uma kasoo baxaa la rabaa ya maasha Allah waxaan kaloo ku darayaa cusbo waan ku darayaa liin dhanaan lemon juice insha Allah coconut oil ama saliid qumbo saa u taqaanid aan ku shubayaa marka saan ku soo wadaa waa isku soo noqonaynaa maasha Allah haddana waxaan ku darayaa filfishi black pepper insha Allah marka intaan isku soo shiidayaa waa isku soo noqonaynaa maasha Allah saan soo shiiday insha Allah haddana weelkan ku gudisana maasha Allah dhaladana isticmaalayaa marka basbaaska ama dressing samaysanaysiin dhalooyinka finjeerka la gashta dhalooyinka fiican insha Allah haddana intaan ku shubanayaa finjeerkan gelinayaa marka insha Allah maasha Allah inaba caadi basbaas inaba caadi ahaan ma ujeedin insha Allah soo ku soo baxaa isku soo noqonaa maasha Allah hadda ka hesheen subscribe ka like share comment kana waa dhinaciina